بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalada muslimiinta ah meel kasta joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkan oo ku saabsan kayfa takunu mustajaba da'wa sidaad u noqonaysaa shakhsi ilaahay uu ka ajiibo ducooyinkiisa iyo dacwadiisa uu ka ajiibo. qof kasto muslima su'aasha uu isweydiiyaa talow sidee baan u noqonayaa ruux ilaahay uu dacwada uu ilaahay uu ku baryo ilaahay uga ajiibo oo uu aqbalo. intaanan su'aasha ka jawaabin aynu tusaale u soo qaadanno saxaabi ka mid ah saxaabada rasuulka oo ahaa mustajabi dacwa nin markaa dacwada iyo ducada laga ajiibi jiray waa saxaabiga Sa'd ibn Abi Waqqas khalu rasuulillah radiyallahu anhu ardaa waa qurayshi way reer bani zuhra ka soo jeeda oo nabigana abreer abtigi ahaa subhanallah kana mid ahaa saabiqiintii hore ahlu badr ka mid ahaa kana mid ah 10 mubashirin bil janna 10 saxaabi ee jannada loogu bishaareeyay subhanallah waa saxaabigii nabigeenu alayhi salatu wasalaam uu jamciyay ee uu ku kulmiyay labadiisa waalid fi yawmi uhud dagaalkii uhud markii lagu guday jiray النبي قال لها ارمي فداك أبي وأمي تربو يدي سعد بن أبي وقاص وحاكو غفرانيا وأن مركا كوهريا أباهي إيهو يدي أيو النبي قال صلى الله عليه وسلم وصاحب قادسية ونكي معركة دميد عانك أهيد قوش ويندسو هي مسلمين قادسية الغفر تودن كدن عراق وسعد بن أبي وقاص جيسي مسلمين ولا لي سعد بن أبي وقاص wuxuu madax ka ahaa magaalada la dhaho Kufa oo wadanka Iraq ku taalay waana xilligii uu khaliifka u ahaa amiirul muuminiin Umar ibn Khattab radiyallahu anhu kolka reer Kufa dadkii deganaa ayaa amiirkoodan Sa'd ayay ka cawdeen cabashadiiba waxay gaadhay khaliifkii muslimiinta markaa Umar ibn Khattab Umar wuxuu soo diray wasiirkiisii markaa isgaadhsiinta subhanallah Muhammad ibn Abi Maslama radiyallahu anhu wuxuu yiri magaalada Kufa tag dadka soo warayso warkan ay sheegayaan ma runba ma beenba magaaladii buu yimi Muhammad ibn Abi Maslama dadkii buu waraystay masaajidada la isugu yiman jiray masaajidadii buu dadka ka waraystay masaajidkii koowaad buu weydiiyay ka warrama amiirkiini way ammaaneen waa khalu rasuulillah waa nabiga abtigii si wanaagsan buu noo maamula si wanaagsan ayuu noo maareeyaa wuu iskaga yimi masaajidka kii labaad kii saddexaad ilaa ma ayuu ka soo gaaray masaajidkii ugu dambeeyay magaalada Kufa iyaguna way ammaaneen sidii kuwii hore markaas wuxuu doonay in uu waliba uu si hubsado uu si akido wuxuu yiri ii dhaarta in amiirkiinu waliba idin wanaagsan yahay subhanallah masaajidkii iyada la joogo ayaa shakhsiba xagga dambe ka hadlay nin aan marka horeba dadka masaajidka aan ku fiicnaan ahayn wal ciyaad billah ayaa wuxuu dhahay maadaama aadna dhaariday oo aad ilaahay nagu dhaariday runtan ku sheegina wal ciyaad billah oo dadku dhan ma been bay sheeganada run sheegay muxuu dhahay hadaba ninkaas wuxuu yiri إن أميرنا هذا نكن ملحظة نوع ما أركتد لا يحسن الصلاة صلاة صفي عن النوم بتجيبه والعياذ بالله رب العالمين ولا يعدل في العطية مركو وحبحنا سعد دالة وحبو مبحيه ولا يقسم في السوية هببحيه قيبنتي سسي من وحما قيبيه ولا يخرج في السرية شدو كلنا الدقالك ومبحيه كله فرديه والعياذ بالله رب العالمين صحابي جيسي أهاي دلك عراق ودن فرطي أيو ليهاي غوريغا أيو فردية مدك لو ليها صلاة دين حتى سبحان الله ما هجاتشيناي عمر بركاس وحو يادي سعد بن أبي وقاص لكن سعد وحو هباري ننكي وضيقي مركاس أما ننكي ماشي فرديي وركا آخريناي محوكو هباري وكيودي اللهم إن كان عبدك هذا إلهي هدو أدون كاغاسي ويهي كاذبا من بين شيغيا فأعمي بصره وأطل عمره هرتا عند بيلسي وعندها تر عمري سنويني وأطل فقره فقري سيباهدي سنبدي أرديري sidoo kalena waa aaridhu lil fitan fitnooyinka iyo marka dhibaatooyinka walciyaad billah u bandhig oo marka hawajaho fitnooyinka taabiciintii waxay dhaheen يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه geeriyooday ninkii cimrigiisii ayaa dheeraaday ducadii unba Sa'd laga aqbalayo ila waa mustajaab dacwa ducadii unba laga aqbalo horta ninkii cimrigiisii wuu dheeraaday oday weyn buu noqday ilama iyo indhihiisa baalashiisaasi ay ku soo dhaceen isagoo ruxmaya oo oday weyn oo 120 iyo dheeraad ah subhanallah
ayuu markaa wuxuu noqday qof fitnada u banbaxsan oo markaa uu isagoo indhala habla yaryar ay meelaha soo maraan ayuu gacmaha saa odhan jiray oo uu doonayay jiray inuu gacmaha uu ku taabto hablaha yaryar walciyaadu billah oday weynan waayeela bal nin dhalinyaro la garayo haba la dhaho shahwe iyo balaayaa haysay laakiin kan baliyahaya waaba shiikh marka la dhaho war shiikh weyn baato waayeela maxaa kaa xun wuxuu dhihi jiray waa oday weyno waayeela shiikhun kabiir waa oday weyno waayeela waxa ay asiibtay asaabatnii dacwatu rajuli saalix waxa igu dhacday habaarkii ninkii wanaagsanaa ee sacad ibn abi waqaas maalintuu beenta ka sheegayay masaajidkii kuufa ee uu dadka istusayay walciyaadu billah habaarkii sacad ayaa ku dhacay subxaan allah calaa kulli xaal sacad ibn abi waqaas radi allahu canhu cumar ayuu u tegey oo wuxuu dhahay ma doonaya buu yidhi magaalada kuufa magaalo sidaas baa iga sheegtay beenta intaa lagaga sheegtay inaan madaxba kasii noqdo tusaale kale isla sacad aynu soo qaadan isla sacad radi allahu canhu soo qaadan oo ahaa mustajaab dacwa dagaalkii qaadisiya markii lagu guda jiray sacad waxaa ku dhacay khaasatan macrakadii ugu darneed waxaa ku dhacay xanuun baa ku dhacay xanuunkaasi wuxuu jidhkiisa ka soo saaray burooyin ama finan buu ka soo saaray rugaga iyo jidhka oo dhan iyo xaggaa dambe oo dhan kolka wuu istaagi kari waayey waanu fadhiisan kari waayey subxaan allah ma istaagi karo mana fadhiisan karo marka halkaa xabadka ama shafka ayuu u jiifay oo meel qasri ah ayuu markaa intuu fuulay ayuu dadka halkaa ka hogaaminayay fii macrakati alqadisiya macrakadii haddaba markii muslimiintu ay guulaysteen nin baa hadlay oo wuxuu dhahay ninkii sacad halkan oo inoo cimaamadaysan yahay buu yidhi subxaan allah raggii kalena dumarkoodii waa kuwana way carmaloobeen oo garoobyay noqdeen sacadna dumarkiisii iyagoo carmalna may noqonin subxaan allah garoobna may noqonin muxuu uga jeedaa wuxuu uga jeedaa ninkii sacad halkan inoo fadhiyayo dagaalka kamuu qayb gelin sacad wuxuu dhahay ilaahayow uu barya markaa allahuma qatac lisaanah ilaahu carabka jarkan wayadahu iyo gacantiisaba jar isagoo meesha taagan unbaa leeb unbaa soo booday meeluu ka yimi aan la garanayn carabkuu kaga dhacay subxaan allah sidoo kale faqudicat yaduhu gacantana waa la gooyey dacwatu sacad ibn abi waqaas mustajaabi dacwa waa nin ducada laga aqbalayo radi allahu canhu wa ardaa sidoo kale waxaa dhacday walaalayaal in sacad ibn abi waqaas uu maalin ka soo horbaxay nin caayayo aflagaadaynaya alimaam cali radi allahu canhu walimaam azubayr radi allahu canhu wasaxaabiy الصaalix alkhayr alfawaad طalxa ibn cubaydillah طalxa iyo zubayr iyo cali buu caayaya subxaan allah dabcan dee sacad cumrigiisu wuu dheeraa saddexdaas saxaabi ridwaan ullahi calayhim way ka hor geeriyoodeen dabadeedna wuxuu ku dhahay uu ka reeba wuxuu yidhi war nimankaasi lahum saabiqa war diinta iyagaa usoo horumaray khayr iyo wanaag bay leeyihin ha caayin wuxuu dhahay waxba nagama gelin waanu caayaynaa wuu diiday markaa subxaan allah markii uu diiday ayuu haddaba sacad wuxuu yidhi allahuma in kaana lihaulaai saabiqa ilaahayow kuwa saxaabada uu caayaya oo aflagaadeynaya waa imaam cali iyo zubayr iyo talxa haddii ay kugu leeyihiin saabiqo iyo mansilo iyo boos agtaada ay ku leeyihiin ninkan maanta waxaad ku sallidaa nakaalkaaga yacni dhagaru maleeg gebigiisaba ka takhallus subxaan allah wuu habaaray habaarkiibaa ku dhacay dabadeedna waxa soo baxay awr yacni maxaan u jeedaa hal ayaa timi hal aan leeyahay qortiidu aad bay u dheeray deetana dadkii ayay soo dhex gashay dadkiina meeshii subxaan allah ayay u baneeyeen ninkii meeshii joognaa unbay hashibaa qabato dhulkunbay geysay balaadka yacni waa sibidhka dhulka sibidhka ah iyo lugaheedii unbay ku tumatay halkiibay kaga takhallustay dadkii waxay daba ordeen ninkii sacad ibn abi waqaas ahaa radi allahu canhu ayagoo leh istujiiba dacwatuk dacadaadii waa laga ajiibay sacad ibn abi waqaasow radia allahu canhu wa ardaa sidoo kale waxaa la dhahaa walaalayaal sacad ibn abi waqaas radia allahu canhu wuxuu baryey ilaahay buu baryey subxaanahu wa tacaala ilan waxa weeye mustajaabu dacwa weeyaan waa nin ducada laga aqbalaye wuxuu dhahay yaa rabbi rabbiyow ina bunaya sigaar carruurtaydu ama wiilashaydu aad bay u yar yihiin buu yidhi ee cimriga ii siyaadi deetana culimmadu waxay dhaheen 20 sannadood buu ilaahay ugu daray dabcan qaabay ku ogaadeen ma jirto laakiin way iska qiyaaseen ama waa mala awaal ayay ahayd sababtaa waxay ka qiyaas qaadanayeen cimrigii uu ku geeriyooday isagu oo ahaa ilaahay cimriga u siyaadiyey subxaan allah cimri dheer uu ku geeriyooday oo uu ka mid ahaa saxaabadii muhaajiriinta saxaabadii ugu dambaysay geeriyootayba ayaa waxay u barbar dhigeen maxay cimrigii
dadkii isaga faciisa ahaa dadkii marka isaga dhigiisa ahaa sida sayidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam oo isaga daadiisa 63 buu ku geeriyooday Abu Bakr as-Siddiq 63 sanadood buu ku geeriyooday Umar ibn Khattab 63 sanadood ayuu ku geeriyooday Zubayr ibn al-Awwam sidoo kale Talha ibn Ubaydillah ragga maaragtay kamid aha 10 saxaabi jannada lagu bishaaray rag badan oo kamid ah 60 jir ayay ku geeriyoodeen oo ay ku qabteen xagga ila rafiiqi al-a'la ama samada sare iyo xagga iyo Rabbi subhanahu wa ta'ala jannadii uu Ilaahay u diyaariyay marka isagu wuxuu ku geeriyooday saacad 83 jir ama 82 sanadood ayuu ku geeriyooday marka waxay dhaheen 20 sanaba loogu darayo isaga carruurtiisa ayaa yaray dabadeedna subhanallah Ilaahay umrigii ayuu siyaadi marka wararka ku soo arooray iyo afarka ku soo arooray saacad in ducada laga aqbalo oo mustajaab dacwaha aad iyo aad bay u tira badan yihiin bal mid kalena aynu soo qaadanay waxay tilmaamaan in gabadhi ay fiirin jirtay wal ciyaadu billah Sa'd ibn Abi Waqqas inay fiirin jirtay oo ay daawin jirtay dabadeedna maalin bay waxay eegtay oo fiirisay isagoo weysaysanay dabadeedna wuxuu yiri shaahatil wujuh wajigaagu madooba deetana wajigeedii baa wuxuu ku noqday qadaadka ayuu wajigii ku noqday wal ciyaadu billahi rabbil alamin gabadhaasina halkaas khalaas ugu dambeysay wal ciyaadu billahi rabbil alamin su'aasha muhiimka ah hadaba waxay tahay la garay Sa'd ibn Abi Waqqas oo ahaa mustajab da'wa nin ducada laga aqbale sidee buu heerkan ku gaadhay waa maxaa keenay in Sa'd radiyallahu anhu ducada laga aqbalo طبعا رسولك أيومي صلى الله عليه وسلم وحكو الله رسولك إلهي إبري إلهي إنو دعوينك يعني جاي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم كعمها انتو سروتا قول الله إلهي دعاك استو كويديستو أبتغي خال رسول الله سعد بن أبي وقاص دعاك استو كويديستو وأجيب وأنا اللهم لكن النبي عليه الصلاة والسلام وحدوني إن أبردتك علم يحكمة يخبرت إن أبرد وحكو الله مركا النبي عليه الصلاة والسلام يا سعد بير هداك ربتدين النقطة مستجاب الدعوة أطب مطعمك أطب مطعمك وحي أدعونيسيد أما واحد قودنيسيد سبحان الله هجاج يعني حاران كان نقنين يعني حاران كان نقنين وهذه هي الحكمة وتحكمة نجد سبحان الله أطب مطعمك بيري تكن مستجاب الدعوة cuntada aad cunaysid hagaaji ama waxaad quudanaysid hagaaji waxaad noqonaysaa marka mustajaab dacwa ayaad noqonaysaa marka min baab al-amana al-ilmiyya hadithka waxa la tilmaamayn oo hadithka soo dhaif u yahay laakiin macnaha hadith waa sahih macnaha hadithku waa sahih oo ahadith fara badan ayaa tilmaamaysa in qofka ducada lagaga ajiibo inuu hagaajiyo quudkiisa iyo wuxuu cunayo de hadithkii sahih ahaba ku yaala fi sahihan ku soo arooray nabiga alayhi salatu wasalaam ka waramayay ninkii marka ar-rajul alladhi yutilu as-safar ninkii safarka dheeranayay dabadeedna ilaahay bari ya rabbi ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudiya bil haram wa malbasuhu haram cuntadu cunay waa haram wal iyad billah oo cabitaanku cabbe waa haram dharku sitana waa haram wa ghudiya bil haram wuxuu isku nafaqayna waa haram fa anna yustajabu lahu hada kan sidee looga ajiibi ducada حديث كاسنا معناها إسلا حديث كان هراء أو كلا أيو ليهي مركا فهم ماشي سرت كجرتو سرت وحوي أطب مطعمك عنتدى أدعوني سيد يقود كاقا هقاتي تكون مستجاب الدعوة وحد نقايس الروح الله سبحانه وتعالى وكأجيبه دعوينك وكأجيبه مركا الروح هدو حاران تيسكيلا ليوحي حارانا وعنيد حاران تيربدا يوحي لمدك دولسارك يبلايدا ويسكيلا ليو الله سبحانه وتعالى دعادي سووك أقبليا وإن طالت الوقت هذا دونت وقت وهبد يرابو سعد بن أبي وقاص قرما دعادي لقى أقبلي isagoo dhintay 100 sanadood kadib ay dhici karta markii masaajidka Kuufa uu ninkii uu ka hadlayay subhanallah soo ma jeedid marka haday doonto waqtigeedu ha dheeraato caajilina way jirin ha soo degdegta ama dib ha u dhiganto laakiin qofka muslimka ilaahay ducada uu ka ajiibaya ducadiidaasina xilliga ay imanayso iyo meeshay ku imanayso iyo duruuftay ku imanayso iyo xaaladday ku imanayso adigu ma maamushid rabbi baa soo maamulaya oo soo maareynaya oo qorsheynaya subhanahu wa ta'ala marka walaaliyaal xikmadu waa taa cuntadaada hagaaji iyo waxaad quudanaysid rabbi subhanahu wa ta'ala uu ka
أجيبيا دعاء دي يوحي أدبرديبا ربي سبحانه وتعالى وكأجيبيا ربي بان ويديسنا إنه نغيره مستجاب الدعوة إنه نغيره كوا ودعوين كودا يوحي أدبريانا ربي وكأقبله هذا والله أعلم وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.